qodobka shanaad waxaan u bixiyay udgoonka iyo quruxda guriga meelad ka muhiimsan baa jira oo barfuunka la iskaga buufiyo waxa kamid ah geeska dhegtaada dabadeeda iyo garabka iyo dhinaca kale halkan dhegta dabadeeda iyo garabka labada meelood inaad halka bif ku siiso halkana bif ku siiso halkana aad bif ku siiso halkana bif maxay tahay muhiimadda laga leeyahay laakiin waliga ma iska fikirtay ama miyaad aragtay nin isqurxinaya waxa moodaa isagaba inaan loo ugu batalagelin sidoo isagu gabadha ugu raaxaysanay inaan isaga loogu raaxaysanayn baa la moodaa kani waa qodobka shanaad ee keenaya farxadda lamaanaha isqaba afar qodob ayaan hore uga soo hadalnay oo ahaa afartii video aan soo dhaafnay halkan dirir media ayaad ka helaysaa fadlan asxaabta soo dhawaada falowdiya loofta iyo subscribe-tana please ha iga ilaawinina idinku mahadsan qodobka shanaad waxaan u bixiyay udgoonka iyo quruxda guriga caadi ma aha baan ku yiri udgoonka iyo farxadda guriga waa maxay waxa laga yaabaa labada qof kasta waa inuu udgoon yahay waana inuu qurux badan yahay inta badan gabdhuhu badankooda way sameeyaan gabdhahan isqurxin way jiraan oo waligoodba isqurxinba oo labadii ay jikada kula jirtay maanta oo dhan ninka maxaan ku raadsaa sariirta kula soo seexata waa laga yaabaa inuu qubaysato dharka iska bedesho laakiin ayna isqurxin quruxda waxa la yiraahdo waa shay aad u qaali ah laakiin gabdho far badan way jiraan isqurxiya make up marsada indhaha afka hayaay tinta way jiraan laakiin waliga ma iska fikirtay ama miyaad aragtay nin isqurxinaya waxa moodaa isagaba inaan loo ugu batalagelin sidoo isagu gabadha ugu raaxaysanay inaan isaga loogu raaxaysanayn baa la moodaa no waa inaad isqurxiso oo talo maxaan isku make up iyo bala war make up ma la u baahanba haddaad soo qubaysato waa qurux markaad soo qubaysato shanle saliid marso masuuqan u socda waa nin naga tabaad waalantaa war ma waaliye suuqa inaad u saliidaysato oo u labisato garka meelba u shanlaysato waxa ka muhiimsan waliba adoo tusayo arkaya maxaan ku raadaay xaaskaaga arkayso inaad iyada darteed aad isku qurxinayso waxa laga yaabaa hal funaanad oo yar ama hal garan yar iyo hal mucawisina guri no 20 maxaan ku raadaay shay oo kala duwan waa in guriga ku yaalaan oo mar walba xirato mucawisihi funaanadahan jiljilicsan ee quruxda badan kuwa gacmagaabka kuwa gacma dheeraha fiinooyinka dhadhag waa in maxaan ku raahdaa oo qofka kale uu isku qurxiyo waa shay runtii aad iyo aad u muhiim ah qodobka labaad udgoonka waxa la yiraahdo ciyaar ma gabadhin isku udgiso ninkuna uu isudgiyo wala markii la isudginayo waxa dhici karta dhaqan baa jirta qof kasta barafuunka qofku soo qaadanaya labada kilkiloodba bif iskaga siinaya خلاص kilkilooyinka dadku laba siba way sameeyaan oo way iskaga buufiyaan kilkiladu waa meelaha dadka maxaan ku raadayay huursan ee ugu dhididka badan ee jirka dhididkiisu u galo so taas way jirtaa inuu qofku uu sameeyo laakiin taa mid ka muhiimsan baa jiro dadku ay u sameeyaan kilkilada barfuunka way haysaa because waa meel xiran so barfuunka ku fasa abaar bay ku haynaysaa taa mid ka muhiimsan baa jira meel ka muhiimsan baa jira oo barfuunka la iskaga buufiyo waxa kamid ah geeska dhegtaada dabadeeda iyo garabka iyo dhinaca kale halkan dhegta dabadeeda iyo garabka labada meelood inaad halka bif ku siiso halkana bif ku siiso halkana aad bif ku siiso halkana bif maxay tahay muhiimadda laga leeyahay muhiimadda laga leeyahay waxa weeyaan qofka markaad laabta isgelisaan aad taagan ama idinkoo taagan ama fadhiya ama jiifa laabta marka isgelisaan qofku hal uu ku dhaafaya wajigiisi madaxiisa garkiisi dhinacan ku dhaafaya kadibna aaganoo dhan wuxuu ka helayaa araf degan oo aad u wanaagsan dhinacan haduu ka haagareeyo geeskan dambe oo dhan wuxuu ka helayaa aagan ka dambayso dhan wuxuu ka helayaa araf aad u degan kilkilooyinka iyo meelaha kale marka waxa ka muhiimsan labada meelood iyo halka xabadka halkaas dhuunta inaad ku buufiso si qofku markuu laabtaada galo aaganoo dhan wuxuu ka helayaa araf aad u wanaagsan caadi ma soo qodobka ah labada qof inuu qofka kale ku dadaalo inuu soo arfay udgoon yahay isla markaana uu qurux badan yahay shacaylkii kor u qaada farxadda kor u qaada nacaybkii damisa xanaaqii damisa masayrkii damisa there is a lot of things it's amazing baan ku yiri caadi ma soo qodobkaasna bal asxaabta insha Allah isqaba ama kuwa guursan doona hal lagu dadaalo